halkani waa xabsiyada qarsoon ee dalka Sacuudiga. waa barta ay ka dhacaan tacadiyada iyo ku tagrifalka awoodeed ee uu majaraha u hayo boqor Salmaanka Sacuudiga. warka dhiilada leh waa in ay miiska saaran yihiin 45 dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo ku xiran xabsiyadan isla markaana lagu xukumay dil toogasho ama daldalaad. Doraad waxa tiirka toogashada la geeyay Maxamed Nuur Xuseen oo ka mid ah wiilasha Soomaaliyeed. maanta se 44 kale ayaa sugaya in tiirkaas la geeyo. arinta xanuunka badan waxay tahay wiilka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maxamed Nuur Xuseen isaga oo tiirka toogashada ku xiran in uu soo wacay adeerkiisa maadaama aabihiisu dhintay daqiiqado ka hor inta aan la toogan. waxa uu yiri oo uu ku dardaarmay, anigu waan dhintay ee badbaadiya kuwa iga dambeeya. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaana saxiixay in la dilo wiilka Soomaaliyeed sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Sacuudi Carabiya. haddaba waxa isweydiin mudan maxay tahay sababta dil loogu xukumay wiilashan Soomaaliyeed. waa dhalinyaro rag iyo dumarba isugu jira. intooda badan waxay u socdeen tahriib waxaana ay ahaayeen dad socoto ah ama safar ah. laakiin dawladda Sacuudiga waxay ku eedeynaysaa in ay ahaayeen ganacsadayaal daroogo iyo in ay dalka Sacuudiga soo geliyaan daroogada. inkasta oo reeraha dhalay ilmahan ku xiran Sacuudiga ay beeniyeen arintaasi. waa wax la yaab leh in ay fanaaniin iyo ciyaaryahano ka yimid galbeedka dunida ay ku cabayaan daroogada gudaha Sacuudiga, khamri iyo nooc kasta oo maandooriye ah. haddana Sacuudigu uu la dirirayo daroogada. si kastaba ha ahaatee, marka aan ka hadleyno Islaamka, waa dambi weyn maandooriyaha iyo ka ganacsigiisa sida Alle uu noogu sheegay Quraanka. Quraanku waxa uu sheegayaa isticmaalka wax kasta oo maanka dooriya sida qamriga iyo maandooriyaha kale in ay xaraam yihiin oo ay dambi yihiin. waxaana si waafi ah loogu sheegay aayadda Quraanka ee ku jirta suuratul Maa'ida. xukunkiisu inta badan waa ta'siir ama wax u dhigma karbaash, xabsi ama ganaax oo uu go'aamiyo qaaliga ama garsooraha maxkamadda. arinta la yaabka lehse waxay tahay in qof maandooriye ku eedeysan uu mutay xukun dil ah gudaha Sacuudiga hadiiba ay run tahay eedeyntaasi. fariinta uu ka tagay Maxamed Nuur Xuseen oo axadii daraad ahayd nafta la dhaafiyay waxay reebtay saameyn weyn oo dhalisay in Soomaalida oo dhan ay ku baraarugaan arintan. waxa uu u hadlay 44 dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo badbaado u baahan markii uu yiri isaga oo tiirka toogashada ku xiran, anigu waan tagay ee hala badbaadiyo dhalinyarada kale. waxay ku xabisan yihiin magaalada Najrah ee ku taalla xuduudka Sacuudigu uu la wadaago dalka Yemen. waxayna sugayaan saxiixa boqor Salmaanka Sacuudiga si dil loogu fuliyo. tani waxay xasuusinaysaa dhacdadii sanadkii 2005 oo ay dunida oo dhan la argagaxday. 6 dhalinyaro Soomaali ah oo lagu magacaabay Cali Sheekh Yuusuf, Cabdulfataax Cali Xasan, Cabdullaahi Aadan, Xasan Haruun Maxamed, Cabdinuur Maxamed Weli iyo Cabdullaahi Xasan ayaa dawladda Sacuudigu waxay subax arooriyaad horgeysay tiirka toogashada 4 Abriil ee sanadkii 2005. Sacuudigu waxa uu dhalinyaradaasi ku eedeeyay xatooyo xoolo, taasi oo ah sabab aysan dil ku mutaysan karin. hay'adaha xuquuqda aadanaha ee dunida ayaa ku tilmaamay xadgudub weyn, laakiin nasiib daradu waxay ahayd in aysan jirin markaasi dawlad Soomaaliyeed oo u dooda raggaasi. si la mid ah 2005 ayaan arkaynaa maanta oo la joogo sanadka 2025. bal adigu aragtidaada hoos nagu la wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer gare.